qaybta kale waatana USD maxaa la horta Tron EVC Plus aa haysataa Tron aa rabtaa iyo qaabka adoo Tron haysatid EVC Plus oo ugu bedelan lahayd habka Somali Sarif Play Store-ka ka heleysaa. Sidoo kale haddaad iska diiwaangelinin part 1 soo daawo iska diiwaangeli kadibna waxa lacag walba aad rabtid waa ka sarfan kartaa. Okay, haddaaba USDT isticmaasho Tron ma ka maarmantid nasi sorry waay mar walba u baahan tahay Tron ma fahanteen. Qaabkaad tagaynaa marka qaabka Somali Sarif ku dhufo kadibna qaabkan kuu soo baxaya yacni tusaale haddii aad qaabka la iska diiwaangeliyo horta inaan mar walba sheego qasab ma ahan. Part 1 soo daawo videoga haddaad iska rabtid inaad iska diiwaangelisid register aad taabanaysaa. Register markaad taabato inta inaan sharxa ma ahan yacni hadda waa ay diiwaangashan yahay log out aa dhahayo waa ka baxaa kadib waa kusoo noqonaa. Okay, ani waqti inuu sii baxa ayaan diidayaa log out meeshaas aa laga dhahaa laakiin waqtiga uu badanayo koley haddaad qaabka la iska diiwaangeliyo aad ka siinin video part 1 soo daawo. Okay, qaybtan waa qaybtii 11aad. Okay, select currency aad ku dhufanaysaa kadib waxaa ku dhufanaysaa EVC Plus aa ku dhufanaysaa waxaa rabtaa Tron select currency meeshan waxaa ka dooranaysaa Tron waatana Tron mujida aa ka dooranaysaa. Tron markaa ka dooratid meeqa dollar ahaan la u qorayaa Tron hala rabtid dollar ahaan $2 haddaad rabtid $2 $3 haddaad rabtid $3 saas camal u qoraysaa. Lacagta ugu yar ee Tronka waxaa waa $2 bas $2.20 haddaad gelisid $2 aa helaysaa oo Tron ah. Okay, exchange aa ku dhufanaysaa $2.20 exchange aa ku dhufanaysaa kadib meeshan Tron wallet Tronka lacagta lagu soo diri lahaa addresska Tronka oo lacagta lagu soo diri lahaa trust wallet gal addresska Tronka oo lacagta lagu soo diri lahaa ayaa copy soo leedahay ayaa meeshaas gelinaysaa. Tron waa kana ku dhufo kadibna halkan ku dhufo receipt ku dhufo kadibna waxaa ku dhufataa copy ayaa ku dhufataa kadibna halkan geli halkaas geli kadibna confirm exchange dheh ku dhufo. Okay, kadib markaad saas ugu dhufatid waxaa kusoo baxaya nambarka lacagta u diri lahayd mobile yaris haddaa haysatid nambarkaas u garaac lacagta $2.20 daba dhig geli qaabka loo geliyo waa ka siisay. Okay, hadda intaasaan ku upgrade-naynaa marka lacagta dirayno saas markaad dhahdid meeshan bast ku leedahay meeshan copy markaad dhahdid bast ku leedahay meeshan lacagta ku qoraysa lacagta kuma qorna mujida $2.20 kadib okay dheh kadib pinkaada geli markaa pinkaada gelisid oo dirtid lacagta meeshan nambarka lacagta ka soo dirtay geli EVC Plus nambarka lacagta ka soo dirtay ma fahantay nambarka lacagta ka soo dirtay geli kadibna submit dheh kadibna waxaad dhahaysaa submit. Wixii intaas ka dambeyso waxaad lacagtaada ku dalban tahay kaliya approve-ka inaa lagaa soo aqbalo lee sugaysaa inta waa kana pending approve-ka daqiiqado wax yar lee qaadanaysaa ma fahantay. Marka waa isla arki doonaa marka refresh aa dhahayna kor aa soo jiidaynaa refresh dheh kor soo jiid marka kor soo jiid waa kaas kadib waa kana approve mujida approve waa la approve gareeyay yacni waa lagu approve gareeyay lacagta waa lagu diray waaye. Lacagaha sarfatine halkaas ku dhufo lacagaha oo wada sarfatine meeshaan ka arki kartaa log in ku dhufo kadibna lacagtii meeshaan mujida approved exchange meeshaan ku dhufanaysaa views all ku dhufanaysaa qaybta mal gaarin markii withdraw haddana oo sameey laga sheegi jiray waa kana lacagaha ka sarfatay dhan meeshaan ka wada arkaysaa mujida hadda lacagta ugu dambeyso waa EVC Plus to Tron. Okay, aan socono hadda qaabka ula bixi lahayn dhiman qaabka ula bixi lahayn idina way fududahay wax weyn maahan select currency dheh 4 daqiiqo lee qaadatay kadibna waxaad taabanaysaa Tron taabo kadib halkan select currency dheh kadibna EVC Plus aa rabaa dheh kadibna meeshaan $2.20 camal aa rabaa $2.20 haddaad dhahdid $2.10 aa kugu filan kadib $2 aa helaysaa yacni waa khidmada waa yartahay markii la baxayo kadib exchange ku dhufo batoonka exchange button ku dhufo kadib markaa ku dhufatid meeshaan EVC Plus wallet nambarka lacagta EVC Plus lagu soo diray ku qoraysan
yacni nambar hormuudka saan haddii nambar eber ka bilaabanayo oo wadatidna oo 7 7 ka bilaabanayo hadaa wadatidna waa qoranaysaa. Eber 7 7 ma ahayn oo saas camal ay ahayd aan maleynaa. Hadda nambarkan hormuudka ku qoraynaa kadib confirm ayaan dhihinaa button-kan confirm ayaan taabaneynaa. Kadib address-kana copies oo leenahay kadib trust wallet-keena galeynaa. Okay, trust wallet-keena galeynaa. yacni application-ka rabto waa isticmaali kartaa token pocket Binance waa isticmaali kartaa qaabka lacagta ugu soo diraysid adaa garanaya soo ma. Kadib Tron-ka ku dhufanaysaa waa kana Tron-ka ku dhufo kadib lacagaha dirayso send ku dhufo kadib meeshan paste ku dhufo kadib halkaas continue ku dhufo meeshan lacagta diraysid inaad gelisaa la rabaa $2.10 meeqa ku soo aadaya $2.10 $2.24 waa kaasa $24 Tron aad diraysaa marka waa $2 waxay u dhigantaa $2.11 u dhigantaa. Kadibna waxaa leedahay continues aa leedahay ma fahantay. Kadib continues aa leedahay Tron khidmadda waxay kaa jaranaysaa oo kaliya 9 senti lee kaa jaranaysaa lacag badan ma ahan ma fahantay. Qaabkaas iyadana hadda lacag ma igu jirto kadib confirm aa leedahay kadibna meeshan you Tron wallet aa gelinaysaa Tron-kaada ayaa soo qaadanaysaa address-ka Tron-ka aad kasoo dirtay ayaa soo qaadanaysaa lacagta address-ka aad kasoo dirtay receipt ku dhufo kadibna meeshan copy dheh address-ka lacagta kasoo dirtay halkaan gelinaysaa paste ku dheh kadib submit dheh. Submit markaad dhahdid waaba ka sarfatay hadda kadib waxaad sugaysaa EFC Plus inaa heshid leh. Haddii oo yacni daqiiqado badan ay kusoo gaari wayso waxaa ku dhufanaysaa halkan chat-iska ku dhufanaysaa caadi ula sheekaysan kartaa teamka ayaa ku caawinayo meel lagaa caawiyo xatee way ku jirtaa waa kana chat-is ku dhufanaysaa teamka ayaa ku caawinayo ma fahantay. Waxaan rajeynayaa qof walba inuu hadalkayga si fiican u fahmay. Okay, hadda refresh aan dhihinaa akoonka kor aan soo jiidaynaa waa kana approve it waa la approve it gareeyay meesha laga soo fiirinayana waa ku tusimo. Waxaan rajeynayaa idina cashirkan inaad si fiican u fahantay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.